السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada janaalkeena Fasoon Africus haddii aad tahay booqashadii koowaad fadlan waxaan kaa codsanaya inaad subscribe like share comment aa saartid halkan waxaan kusoo gudbin doonaa taxaniheenii saddexaad ee inoo socday barashada suuqa forex-ka qaybtiisii saddexaad ama cashirkii saddexaad cashirkan saddexaad waxa uu hadli doonaa currency pairs ama lacagaha suuqa forex-ka looga shaqeysto maadaama hore aan usoo aragnay hordhacii forex-ka wuxuu yahay aan cashirkii labaadna aan ku aragnay erebixinada aan lo isticmaalo suuqa forex-ka waxaa muhiim ah qofka inuu haddana fahmo lacag waxa ay tahay iyo lacagaha nooca ay tahay inuu kala fahmo lacagaha suuqa forex-ka waxaa loo kala qaadi doonaa saddex lacagood oo kala ah major iyo cross iyo exotic so mid walba waxa ay tahay iyo tusaalaheeda kusoo qaadan doonaa currency pairs ama lacagaha sideeda waxaa u kala qaadinaa saddex waa major iyo cross iyo exotic major currency maxaa la dhahaa waa lacagaha oo base-koodu yahay ama lacagaha uu ku socdo dollarka crossna waxaa la dhahaa waa lacagaha aan la soconin dollarka exoticna waxaa la dhahaa waa lacagaha dowladaha hadda soo koraayo mid walba tusaalaheedan arki doonaa major currency-ga waa kuwan waa lacagaha waaweyn oo la socdo USD-ga mid walba ujeedaa ama USD ugu horeyso oo dollarke ama waa ugu dambeysaa so marka kan lacagti waaye euro USD kanne markii loo soo gaabiyo nickname-kooda ama naynaaskooda waaye euro USD waa lacagta eurozone-ka iyo lacagta United States ama US dollar markaasoo kale nickname-ka maxaa la dhahaa euro dollar aa la dhahaa mar walbo USD-ga ayada nickname-keeda dollar ay noqonay so marka lacagtan kan loo pound USD waa nickname-kooda markii la akhrinayo JPY USD waa nickname-kani pound dollar waa so bracket-kan wuxuu ku tusaa lacagtan nickname-keeda ama markii lasoo gaabiyo magaca loogu wacaayo AUD USD oo ah Aussie dollar waa lacagta Australian-ka iyo lacagta Mareykanka oo isku sarifaayo NZD USD oo ah New Zealand-ka iyo lacagta United States oo isku sarifaayo markaas maxaa loo soo gaabiyo nickname-keeda maxaa waaye Kiwi dollar aa la dhahaa USD CHF USD qof walba wuu garanaya waa lacagta United States ama dowladda Mareykanka CHF-na waxaa waa lacagta Switzerland ama Swiss-ka USD JPY oo ah dollar yen maxaa waaye waa lacagta Mareykanka iyo lacagta Japanese-ka USD CAD USD waa lacagta Mareykanka halka CAD-na ay tahay lacagta Canada maxaa la dhahaa dollar loonie so marka JPB-na waxay u taagan tahay lacagta Ingiriiska Euro-na maxaa waaye lacagta eurozone-ka so eurozone Ingiriiska oo British-ka ah Australia New Zealand CHF oo ah lacagta Switzerland-ka JPY oo ah lacagta yen-ka ama Japanese-ka CAD oo ah lacagta Canada oo ah loonie so major currency-ga oo ujeedin calaamad ahaan lacagta yuuraha iyo Mareykanka Ingiriiska Mareykanka iyo Jabaanka Mareykanka iyo Switzerland-ka Mareykanka iyo Canada oo Australia iyo Mareykanka New Zealand iyo maxaa la dhahaa Mareykanka so kuwaas waxaa la dhahaa waa major currency-ga waa lacagaha ugu badan ee suuqa ugu waaweyn ee looga shaqeysto forex-ka waa ilaa iyo 1 2 3 4 5 6 7 ilaa iyo 7 lacagood waaye guud ahaan markii laisku soo dardaro suuqa forex-ka lacagtiisa waa 8 lacagood marka 7 hadday ka noqotay 21-kooda kale aan isla fiirino qaybta kale xigta waxaa la dhahaa process currency waa lacagaha aan la soconin non-USD dollar calashaan lacagahan oo beerbeerka laisku saarayo wax dollar eh mala socdo waa lacagihii oo dollarka la socday oo ayakii isku match gareeyay intoo kale marka maxaa noo taalo lacagaha waaweyn oo majorka ah yuuraha yen-ka ama Japanese-ka British-ka Canada Australia iyo New Zealand waa major currency isla iyagii ayaa waxaa laisku sameynaa oo laisku match gareynaa tusaale oo kale hadda euro oo kale euro JPY euro CHF euro CAD euro AUD euro NZD euro JPY so marka trade gareynaysa ina lacagtan aad trade gareysmaan kuwanba waa ku trade gareyn kartaa Jabankan sidoo kale CHF-kan hore usoo waa lacagta Switzerland-ka Japanese-ka
dhammaantood marka waxaa la cross currency-ga waa lacagaha aan la soconin maraykanka. Qaybta ugu dambeyso waxaa la dhahaa exotic currency. Exotics waxaa waaye waa lacagaha dowladaha hadda soo koraya oo kobaca dhaqaale ay sameynayaan. Waxaa ka mid ah Euro Turkish ama Turkish Lira. Waxaa ka mid ah USD SJD oo ah SJD-ga waxaa waaye waa Singapore dollar-ka, USD HKD oo ah Hong Kong lacagta Hong Kong ah. Dhammaantaan waddamadan waa waddamada soo korayo. USD SAR oo kale waa South African rand oo kale, USD SEK oo ah Swedish krona, USD NOK oo ah Norwegian krone. So intaan waa lacaga dowladaha hadda soo koraya ah. Inta badan dadka bilowga markay yihiin ama inta badan suuqa forex-ka dadkaas isticmaalaan oo dad gaar ah oo kaliya isticmaalaan. Laakiin waxay kuu muujinaya in lacagahan balo oo transaction ka dhaco oo la isku beddelo. So marka muuqaalkeenii taxanaha iyo qaybtiisii saddexaad maanta halkaas ayaan kusoo koobaynaa. Haddii ay tahay booqashadaadii koowaad fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe, like, share, comment aa saartid. Sidoo kalena waxaa lagaa codsanaa casharrada sida iskugu xigaan inaad u daawatid. Haddii aadan kuwa hore soo daawanin fadlan dib ugu noqo cashirka koowaad iyo cashirka